laakiin xaqiiqda dhabta ayaa sida ugu macquulsan oo hadda taagan in channelka sheegtay oo ka dhawaajisay Daahir Cali Sow iyo Sayaana tiri sida la socdana waa sax marka Daahir Cali Sow waxa jiray horay YouTube badan oo horay uga saaray iyo fanaaniin ay isqabteen oo heesooda hawada uga saaray qaarkood markii dambe xal laga gaaray bal hadda maadaama aad ka mid tahay saaxiibada ugu dhow ee fanaanka Sharma Boy cabsida aad dareemaysan ka waran in fanaanka YouTube-kiisa iyo heesihiisa hawada ay ka baxaan horta baan ma ahaan wax waxaa iminka si toos ah qadka ugu jira mid kamid ah saaxiibada ugu dhow fanaanka Sharma Boy oo aan ognahay in saacadihii u dambeeyay qaar kamid ah heesihiisii ku jiray channelkiisa YouTube-ka hawada ay ka baxeen saaxiibkan oo kamid ah dadka aad ay isugu dhow yihiin fanaanka Sharma Boy ayaana bal arintan inooga warbixin doona oo ku maasantaa saaxiib codsiga aad naga aqbashay in aad bal inta aad ka ogtahay xogtan Sharma Boy iyo arrimaha baraha bulshada iyo heesihiisii hawada ka baxay bil xiriir aad nala wadaagto soo dhawow marka hore bal maxaad kala socotaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda fanaanka Sharma Boy iyo heesihiisii ku jiray channelkiisa YouTube-ka oo hawada ka baxay bal maxaad nala wadaagi kartaa waa mahadsantahay Cabdalla adiga iyo asxaabta ku xiran Badacas waxaan leeyahay maalin wanaagsan aad u salaama haddii aan u gudbo arintan jirta saaxiibkayga Sharma Boy arrimaha haatan soo ifbaxayo oo taagan social media oo ku saabsan dhanka khilaafka taagan iyo YouTube ku saabsan waa arrin iska taagan oo jiro fanaankana waa nin dhalinyaro ah oo saaxiibkeena ah oo Soomaali ka dhashtay waana nin fanaan Soomaaliyeed ah waxa saacado kooban saacado ka hor ay speaking dambeysay xaaladda waxa kala socda in arintan taagan tahay oo ay jirto in iska qabsi ay ka taagan tahay heesihiisa qaar muuqaalada YouTube-ka awada ay ka maqan yihiin arintaasna waxay imaatay waxyaabo soo kordhay private inuu ka dhigtay marka waa dareemi kartaa qof oo YouTube isticmaalo bulsho ay ku xiran tahay oo fanaan Soomaaliyeed ah iyo xaaladaha soo kordhi kara mar walba waayahay waa maasan tahay saaxiib mar kale aan kaga mahadcelinaya codsiga naga aqbashay qaar kamid ah heesihii fanaanka Sharma Boy gaar ahaan heesihii ku jiray channelkiisa YouTube-ka ayaa hawada ka maqan maxaad kala socotaa in hawadu ka baxay channelkii fanaanka Sharma Boy maadaama aad isku dhowdihiin xogtaas bal maxaad nala wadaagi kartaa oo saaxiibada channelkan ku xiran aad la wadaagi kartaa iyo cidda ay sahaanba fanaanka Sharma Boy heesaha hawada ka maqan ama channelka kulli channelka hawada uu ku jira cid walba way arki kartaa waa uu shaqeynaya channelka Sharma Boy kaliya muuqaalada heesihiisa ama muuqaaladii ku jiray ayaa hawada ka maqan adigina social media waa la socotaa si fiican ugu taqaanaa in qofka uu ka dhigan karo private ama muuqaal ka mid ah muuqaaladiisa uu xiran karo uu private ka dhigi karo ninkaasna Sharma Boy saaxiibkayga ah heesihiisa waa private u yihiin oo sida hadda xogta aan ku heeyo isagana aan kala socday xaaladana ay tahay heesaha waa private muuqaalada saacadaha soo socdo iyo maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa in xaaladda sidee noqoto laakiin waa dareemi kartaa arrintaana waxay kasoo bilaabatay oo ku saabsan dhanka khilaafka iyo ku aadan dagaalka ninkan lagu magacaabo Daahir Cali Sow oo ka mid ah dadka social media aad ugu xeel dheereeya oo social media isticmaalo ay isku dhaceen khilaaf kasoo bilowday showgii ciida magaalada Muqdisho lagu qabanayay oo hogaaminayay Ismaaciil Arka iyo Najma Nashaad iyo hogaaminayeen Ahmed Arshe fanaankana Sharma Boy waa dalka ayuu ka maqnaa markii lagu dhawaaqay showyadaas oo dalka inay ka dhacayaan waxaa jirtay in Sharma Boy lagu casuumay oo sawirkiisa lagu soo darsaday showgii Ismaaciil Arka asagana markuu magaalada Muqdisho imaaday uu afkiisa ka cadeeyay oo channelkiisana uu soo dhigay in uu soo dhaweynayo martida sidaas ayuu ku soo dhaweeyay martida oo kaga qayb noqday Daahir Cali Sowna waxa uu sameeyay hanjabaadyo iyo waxyaabo oo hawada soo mariyay oo dhahayo showgaas kama qayb gali kartid laakiin
ugu dambeyntii waxay kusoo gabagabowday in Sharma Boy uu ka qayb galo showgii Najma Nashaad iyo Axmed Aarshe uu ku sheegay inay walaaladiis yihiin oo dad marti ay u yihiin oo showgoodan u kala kiciyay si lamid ah showgii Ismaaciil Arkan waa uu qabsoomay cid walba way ogtahay laakiin labada show way hirgaleen khilaafka meesha uu kasoo bilowday markii intaas laga soo gudbo waxaa jirtay waxyaabo taagan oo hadda waxaa la socotaa Daar Cali Sow inuu yahay nin iska mucaarad oo waxyaabo qaar oo macnaha dad ku dhaliilo oo nin social media waad dareemi kartaa Sharma Boy uu soo qaaday ayaa ka mid ahayd erayo ku saabsan farmaajo iyo afanka anaga ah farmaajo erayadaas iyo hadalkaas heesta ku jirtay khilaafkii ayaa horay hawada u sii galay laakiin waxyaabaha shakhsiga ah oo zaid ku sii xeel dheereeyo haatan ma sii hordhici karo waa ka gaabsanaa laakiin sida asaga buu afkiis ka cadeeyay alfanaan Sharma Boy fanaanka dhalinyarada wuxuu sheegay in heesihiisa ay u xiran yihiin uu soo bandhigi doono sida dadka ay wada arkeen laakiin intuusan live-ka soo gelin ka hor 24 saac ka hor saacadii ugu dambeeyey ayaan xogtaas hayay laakiin shacabkiisa ayuu la wadaagay in xaaladda sidaas tahay Cabdalla waayahay adigu maxaa ku xaqiijin kartaa in heesaha fanaanka Sharma Boy ay private u yihiin oo isaga uu xirtay hawadana aysan ka bixin oo culays badan oo la saaray darteed ama YouTube-ka dacwooyin YouTube-kiisa lagu furay aysan hawada uga bixin maxaad asxaabta ku daawanaysa uga xaqiijin kartaa waa maasantahay waxyaabaha ku xaqiijinaya waxaa ka mid ah haddii janalka hawada laga saari lahaa ama waa dareemi kartaa janalkii oo dhan ama magaciisa hawada ka maqnaan lahaa laakiin qofka social media isticmaalo ayaa fahmi karo laakiin xaqiiqda dhabta ayaa ah sida ugu macquulsan oo hadda taagan in janalka uusan hawada ka maqneen ama wax oo istiraag ah ama wax oo lagu qabsanin waxbay ka saaris aysan jirin laakiin janalka hawada waa ku jira waa xaqiiqo dhab ah laakiin saacadaha soo socdo iyo 24 saac soo socoto ayaa sida dhabta ah aad u wada arki doontaan in janalka uu shaqeynayo anigoo haatan idin cadeynayo oo idin sheegayo shacabka Soomaaliyeed inta dhageysanayso waxaa leenahay Sharma Boy dhalinyaro fara badan aad taageersan waa fanaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo aan qabiil ahayn sidoo sheegay waana sax qofka fanaan hadduu mar yahay in uu dhan jira ma wanaagsana laakiin wax walba qofka bani aadanka waa la kala aragti doonaa karaa qofkan wax walba aaminsanaa karaa laakiin qofka bani aadanka ah iyo shacabka kala saara iyo fanaanka mar walbo ma ka soo jeedo oo dhinacaas shanta Soomaali meeshuu jooga waa fanaan Soomaaliyeed mar walba marka inta taagan ayaa ah oo aan ku xaqiijinayo in YouTube-gaas uu hawada ku jiro oo na shaqeynayo laakiin saacadaha soo socdo ama 24 saac uu soo socoto ayaad arki doontaan xaqiiqda dhabta ah iyo in ay YouTube-gaas hawada uu ku soo laaban doono aad oo mahadsantahay badacas Cabdalla waayahay inta aadan ka bixin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saa sheegtay oo aad ka dhawaajisay Daar Cali Sow iyo sayaan tiri sida la socdana waa sax marka Daar Cali Sow waxa jiray horay YouTube badan oo horay uga saaray iyo fanaaniin ay isqabteen oo heesooda hawada uga saaray qaarkood markii dambe xal laga gaaray bal hadda maadaama aad ka mid tahay saaxiibada ugu dhow ee fanaanka Sharma Boy cabsida aad dareemaysan ka waran in fanaanka YouTube-kiisa iyo heesihiisa hawada ay ka baxaan horta baan ma ahaan wax jiro waaye in Daar Cali Sow uu yahay in social media aad u yaqaano oo dad badan horay oo hawada kaga saaray qaarkoodna iska taagan yihiin laakiin anaga hadda wax walwal oo cabsi ah lama hayso maadaama ninka hadda saaxiibkeyga Sharma Boy oo dadka isku dhownahay uu ka mid yahay laakiin cabsi hadda sidaas u weyn lama hayso waxaanahay anaga dad isku kalsoon oo social media-haasna qofka bani aadanka hal mid cabsan kartaa waa marka adiga qofkaas uu ka haayo waxyaabo muuqaal asaga uu leeyahay ama waxyaabo asaga uu leeyahay isticmaasho ama waxyaabo uu kugu dacweyn karo ama waxyaabo asaga uu ka haayo xog oo kale in uu ku dacweyn karo ama hawada uu kaaga saari karo ama uu hanjabi karo anaga hadda wax rakaato hanjabaad ah oo aan qof kaga cabsanayno social media-haas haddirtaan ma taagna laakiin wax walba ayaa iska macquul ah
anigana waa dareemi kartaa youtube-ka alfanaanka heese isaga uu leeyahay ayuu soo dhigaa mana ahan youtube oo wax walba lasoo geliyo ama isku dhexyaaca sida youtube-yada soomaalida aad aragtaba tahay ugu dambeyntii adoo ku mahadsan waqtiga aadna siisay ilaa iyo goormeed istaqaanin adiga fanaanka Sharon Boy waxaa isnaqaanaa ilaa iyo yaraanteyda oo isku xaafad aan ahayn isla soo kornay oo iska warhayno haatanna ku sugan yahay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo haatan qof walba uu og yahay iyo halka uu awal magaalada Muqdisho uu ka degnaa ninkan fanaan Sharma Boy wuxuu xaafadiini si lagu xaqiiqsado inaad Sharon Boy saaxiibatiin bal xaafadiini aad wada degnaadeen hadaad noogu dhawaaqdo xaafada nasteexo qof walba yaqaano qof walba Madiina degan ama Wadajir degan ama nasteexo degan Sharma Boy yaqaano meesha uu ka soo askumay ama uu ku soo barbaaray ama uu yaraantiisa waqti uu ku soo qaatay dadka reer Madiina ogaan karo oo yaqaano laakiin markii uu fanka aad u soo galay waxa degmo ka mid ah degmada Boonbeer ayuu degay laakiin familkiisa iyo ayaa degan degmada Madiina ama Wadajir ninkan fanaankana halkaas uu ka soo baxay laakiin fanaan Soomaaliyeed oo Sharma Boy oo nin dhalinyaro ah oo talent leh oo bulshada iska gaday oo wax walba qabsaday oo mar sameeyay weeyaan sida arkaysaan oo qof walba og yahay laakiin inaan ninkan isku dhownahay horta qofka bani aadanka inuu waxyaabo uu jirin ama uu ku faano ma fiicno laakiin qofka bani aadanka wixii yahay ayuu yahay qofka bedeli kartana ma lahan qofka ninkan intuusan soo caanbixin oo social media soo galin waxaa ka mid ah dadka social media ku soo dhaweeyay muuqaalo isla sameeyeen ha noqoto short film oo kale iyo muuqaalo oo talentigiis ku soo bandhigayo waxaa ogeed intuusan soo caanbixin fanaanka Lil Balil show magaalada Muqdisho ku qabsanay markaas ka hor ayaan isku xaafada isla baashaali jirnay wax walba isla qabsan jirnay cid walba taqaano marka qofka bani aadankana horumarka uu gaaray lagama xumaado oo waxaan leeyahay hore u soo saaxiib marka Cabdalla waa dareemi kartaa waxaan leeyahay saaxiibkeyga anoo waqtigana gabaad ku sii yahay waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan arinta taaganna waad arki doontaan wax walba iyo wixii ka soo kordho shacabka Soomaaliyeed iyaga ayaa garsoore ka ah social medias aad iyo aad u mahadsan tahay saaxiib waqtiga aadna siisay adiga mudan adiga channelka Badcas aadan salaam mahadsanid